xaaska cusub ee robotka ah ee Elon Musk maalmihii ugu dambeeyay waxa baraha bulshada haystay sawiradan Elon Musk iyo gabadhan robotka ah oo isku dhagan waxaana sheegeen inay tahay xaaskiisa cusub. Elon Musk kaliya ma ahan sidoo kale ayadana waxa la sheegay milkiilaha shirkadda Meta Mark Zuckerberg inuu asagana leeyahay xaas robot ah. Haddaba u kaadi Mark Zuckerberg wuxuu qabay xaas bini'aadan ah waliba maalmahan wuxuu u dabaaldegayay dhalashada wiilkiisa oo wiil ayaa u dhashay. Sidee wax u jiraan ma anagay nawaalayaan? robot wife-ka iyo dhammaan waxyaabahan ka socda social media ee la isla dhaxmarayo iyo xaqiiqada dhabta ah muuqaalkan ayaan kugu fahansiin doonaa ay ila dhameyso. magacayga waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeena waxaan uga hadlaynaa xaqiiqada dhabta ah ee robot wife-ka iyo hadalhayntii maalmahan ka dhex taagneed social media. muuqaalo aan uga hadlay artificial intelligence-ga waxaan ku sheegay inay bini'aadamka halis ku yihiin. haddaba inta aanan u gudagelin xaaska Elon Musk ee artificial intelligence-ga ah waxa ayadana soo shaaca baxday inuu dagaal ka dhaxeeyo fanaanka caanka ah ee Drake iyo artificial intelligence-ga. artificial intelligence-ga ayaa waxa lagu generate gareeyay hees uu leeyahay fanaankan, erayadii, laxankii, muusigii iyo waliba codkiisa. dad aad u badan ayaa daawaday waliba waxay ku shakiyeen in heestan uu dib u soo qaaday fanaanka Drake. waxay sheegeen in heestaas lagu qoray ChatGPT-ga, erayada iyo laxankana uu sameeyay ChatGPT. codka fanaanka oo koobi ahna loo adeegsaday artificial intelligence-ga. haddaba music industry-ga waxay sheegeen in khatar weyn ay kala kulmayaan artificial intelligence-ga oo fanaaniintii codkooda iyo heesahoodaba la koobinayo. We asked GPT-4 to write a rap summing up this whole Drake voice being used without his consent controversy. رمية قارسي ونارك حبلود وعني يضمضان بدي دثني يشوط بدي لك وشي horumarka teknolojiyadda iyo artificial intelligence-gana saameyn badan ayay dunida ku yeelatay. muuqaalkan ila daawo. Бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати. muuqaalkan ayaa baraha bulshada qabsaday madaxweynaha waddanka Ukraine oo amar ku siinaya ciidamadiisa inay isdhiibaan. haddaba muuqaalkaas fake ayuu ahaa oo waxaa la isticmaalay waxa la dhaho deep fake waxayna ku sababtay in madaxweynaha waddanka Ukraine intuu shaashada soo fadhiisto uu dadkiisa u sheego oo dhaho muuqaalkaas wuxuu ahaa been oo aniga ma ahayn. muuqaalada loo isticmaalo deep fake waxaa lagu khalday dad aad u badan. sidoo kale waxaa loo isticmaalay actor-ka Tom Cruise. muuqaaladan deep fake marka aad daawanaysid way kugu adkaanaysaa inaad kala saarto kan xaqiiqada ah iyo kan beenta ah. waxay isticmaalaan advanced editing iyo artificial intelligence. wejiga qofka ayaa different angle ka edit gareeyaan sidoo kalena codku waxay ku generate gareeyaan artificial intelligence. muuqaalkan Morgan Freeman ayaa dadka loogu kala cadeeyay in waxyaabahan aysan ahayn wax xaqiiq ah. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? I'm going to show you some magic. Hundreds of millions of people spent over billion minutes absorbing it. The face swap with Tom Cruise. You haven't seen it? No. You got to see this. Incredible. Tom Cruise has become a viral hit on TikTok, or has he? This is serious breaking news. I'll believe it when I see it. Yeah. And now maybe no longer. The future is here. haddaba aan u imaana xaaska Elon Musk ee robotka ah maxaa ka jira waxyaabahaas. sawiradan social media ku faafay waxaa soo dhigay ciwaankan Twitter-ka waxaana u maleynayaa inuu iska leeyahay wiil Nigerian ah. wuxuuna ku soo qoray qoraalkan asagoo sheegay in shirkadda Tesla ay sameynayso robotyo gabdho ah oo aad ka dhiganayso xaas kaliya wax kale kaagama baahno markaad isticmaasho kadib waad charge garaynaysaa. sawiradaas ayaa baraha bulshada aad ugu faafay. dadkan waxay isla dhexmarayeen Elon Musk ayaa wuxuu sameysanayaa robot wife ah laakiin ilaa hadda lama hayo meel uu Elon Musk ku sheegay in shirkadiisa ay sameynayso robotyadan. sidoo kale shirkadihiisana ma aysan sheegin waxyaabahan. sawiradan meesha in kaga muuqdana waxaa sameeyay artificial intelligence-ga oo AI-ga wuxuu kuu sameynayaa sawir alla sawirka aad ka codsato sida sawiradan oo kale. haddaba sida meesha nooga muuqato sawiradan Elon Musk uu ku dhagan yahay gabadhan robotka ah waxaa sameeyay artificial intelligence-ga oo ma ahan wax xaqiiq ah. sidoo kale Mark Zuckerberg asagana sawiradan waxaa lagu sameeyay artificial intelligence-ga oo ma ahan wax dhab ah. But it's certainly not a robot wife, and all of those images that we've seen of Elon Musk dancing or kissing a female robot, those are all indeed fake and generated by artificial intelligence. sanadkii 2020 ayay sheegeen shirkadda Tesla inay sameynayaan robotyo oo ay soo bandhigeen laakiin robotyadaas uma aysan kala soocin jinsi nin iyo naag. waxayna sheegeen inay u isticmaali doonaan sameynta gaariyaasha sida inay u adeegsadaan xamaaliga iyo shaqooyin badan oo ay qaban lahayn bini'aadamka. haddaba waxyaabahan ay Soomaalida isla dhexmarayso oo ay sheegayaan in Elon Musk uu sameeyay robot wife
waxyaabahaasoo dhan waa been waxna kama jiraan teknolojiyadda iyo isticmaalka internetka waa la isku khaldaa oo waxay noqotay meel aadan kala saari karin waxa dhabta ah iyo waxa khiyaaliga ah adigana yaa nagu khaldin oo meel cidla yaan lagaa tuurin muuqaalkeena intaas ayuu ku saabsan yahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro